iyadoo xarunta tababarka booliiska ee magaalada Jowhar ay ku xareysan yihiin dhalinyaro ilaa iyo 200 oo qaadanaya tababarka dhinaca booliiska ayaa waxa xarunta tagay wasiirka amniga ee Hirshabelle waxaana uu kala hadlay qaabka iyo sida ay uga faa'iideysanayaan isagoo ku dardargeliyay in si fiican ay u qaataan duruusta halkaasi ee la xiriirta dhinaca sugidda amniga iyadoo dhinaca kalena maamulayaasha xaruntaasi ay ka mahad celiyeen tababarka AMISOM ay siiso dhalinyaradaasi iyagu cusub إبراهيم علي نور أيا وربحنتن كسر دري مجال جوهر. وزيرك وزارة أمنية دخل عليه ميليشيات كدولة قبلات كيرشبيلة عبد القادر آدن جالي أيام ما أنت كورمير كتجي حرنت توبرك عيد مدى بوليس كيرشبيلة وهذا توبر وقصدين كله لو بقولوا عسكري عبد القادر آدن جالي وزيرك وزارة أمنية كيرشبيلة أيام أنت وكوكو تجري كورمير كيسة وحكول ملقاتي معلميتي عيد مدى بوليس كيرشبيلة وهناك لها الله سيدي لو كورد لها توبرك عيدمada booliska Hirshabelle maadaama ciidamada hadda tababarku socdeeyeen booliskii uu horeeyay maamulka Hirshabelle yeesho ugu horeyn macluumaadka bixinaya tababarka iyo mid kamid ah saraakiisha ciidamada AMISOM ayaa sharaxaad kooban ka bixiyay tababarka ciidamada magacaygu waa Dhama Saare Cali Xasan waxaan ahay macallimiinta wax ka barta meeshan ardaydan waxaan mahad gaar ah u celinaynaa macallimiinta AMISOM iyo macallimiinta federaalka ka timid iyo kuwa kale gabigood aad iyo aad ay u mahadsan yihiin waxaa kaloo sharaf weyn ah in ay ardayda aan wax baraynay si wanaagsan ay nooga dhageysteen tababarkana si fiican u socdo markaana uu yahay gabagabo waxaa mahad gaar ah u soo jeedinayaa ciidanka halkan fadhiyo oo 180 iyo 198 ah sida ay noola shaqeeyeen wayna ku mahadsan yihiin wax dhibaato intaan joognana kalama kulmin. We started this course on 15th November 2018. Of course, we started with 200 officers, 13 females, and 187 male recruits. dhinaca kale wasiirka wasaaradda amniga ee dhaqan celinta maleeshiyaadka dowlad goboleedka Hirshabelle Cabdulqaadir Aadan Jalle ayaa sheegay in wasaaraddiisa ay ku hoolan tahay diyaarinta istiraatiijiyada ay ku shaqeyn lahaayeen ciidamada maadaama bisha labaad ee sanadkan la qorsheynayo in tababarka loo soo xiro ciidamada farxad ay tahay maanta inaan maaragtay soo kormeero ciidankii ugu horeeyay ee boolis uu yeesho dowlad goboleedka Hirshabelle ciidankaas oo tiradiisu ay tahay 198 waa guul iyo farxad u soo hoyatay dowlad goboleedka Hirshabelle iyo qaasatan wasaaradda amniga iyo dhaqan celinta Hirshabelle waxaan rajaynaynaa insha Allah sida macallimiinta ay sheegeen sida ugu soo baxdeen maartay koorsooyinkii iyo casharada aad qaadateen iyo sida leedku amaanay in anagana insha Allah markaas halkan ka baxaysaan nin walba uu yeesho insha Allah akoon uu maartay mishaarkiisa ugu soo dhici doono inaan sameeyno insha Allah strategy balankii ku shaqeyn lahayd ay ku howlgal lahaydeen Ibrahim Ali Nur TV Universal عاصمة هيرشبيلة جوهر.